waxaa kaloo jira oo ramadaanku markuu dhammaado imaanaya waxaa la yidhahdaa sadaqatulfidri waxaa la yidhahda sadaqatulfidri ama zakaatulfidri ama zakaatulfidra magac walbaba halakaate zakaatulbadanna waa la yidhaahdaa waa zakadii dadka laga bixin jiray sida xoolaha looga zakeeyo sanadkiiba mar ayaa dadkana looga zakeeyaa zakaatulfidrigaas zakaatulfidrigaasi waa waajib waa shay waajib ah soomkaana lagu kabay soomka ayaa lagu kabaya shay walba oo arkaanta islaamka ka mid ah wuxuu leeyahay wax lagu kabo xajka waa aragteen markii la xajiyo udxiyaa lagu kabay zakada sadaqa lagu kabay salaada faradka salaad sunnaha lagu kabay soomka waxaa lagu kabay zakaatulfidriga zakaatulfidrigaasi waxaa la waajib yeelay bishii sanadii labaad hijrada soomkan ramadaanka markii la farad yeelay baa ayana la farad yeelay isku mar bay ahaayeen waa sanadii labaad bay ahayd marka waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in loo farad yeelay oo lagu kabahayo soomka oo wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis laga wariyey فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث وضعمة للسائل فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات rasuulku wuxuu farad yeelay zakaatulfidriga waxaa weeye duhro waxaa lagu dahirayaa qofka saa'imka rafadkii iyo laqwigii soomkiisa ku dhacay iyo fuxshigii iyo kalaamkii xumaa iyo wuxuu la yimid soomka dhexdiisa ayaa lagu dahirayaa oo looga dhaafaya zakadaas dadka masaakiintana waa lagu quudinayaa quud bay u tahay oo iyagana waa ducmatun lilmasaakiini wey masaakiintana waa lagu quudinayaa nebigu wuxuu yidhi qofkii salaada ciidda ka hor guta oo bixiya hadda waa zako oo maqbuulah waa la aqbalaya wey haddii salaada kabacdi uu bixiyana ayana waa sadaqooyinka ka mid a oo iyada lafteedana waa u gudaysaa laakiin waa laga fiican yahay oo waxaa ka sii fiican in la hormariyo ilaa waxaa loogu talagalay masaakiinta maalmahaas maalinta ciidda iyo hamiinkeeda iyo wixii maaragtaa ay heli lahaayeen ama shaqadii ay shaqayn lahaayeen ama maaragtay waa ka xabisan yihiin oo markaa hadda dadku waxay ku jiraan ciid iyo damaashaad bay ku jiraan wax ku shaqaysanaya wax siinaya male ayagaa loogu talagala markaas hamiinkaas iyo maalintaas inay ka faa'iidaystaan marka in loo hormariyo sidaasaa la fiicanba wey sadaqadaasi waxay u waajibaysaa masaakiinta la siinaya dadkii zakada la siin jiray ayaa la siinayaa waxayna ku waajibaysaa qofkii xoolo leh oo maalintaas ciidda iyo hamiinka ka dambeeya waxyaalaha uu u baahan yahay nafaqadiisa isaga ciyaalkiisa nafaqadooda wixii tashiilaada uu u baahan yahay wixii wax ka dheeraada qofkii heli karaa qofkaasaa laga rabaa zakaatulfidriga qofkaasaa laga rabaa qof aan waxba haynin oo wuxuu cunaba asagoo aan haysanba bal iska daa wuxuu dheeraadee kaas lagamaba rabo waajibba kuma ahan baa leeyihi qofka marka wax heli karaa bisha ramadaana iyo bisha shawaala labadaa biloodna isku soo gaaray oo markii ramadaan qoraxdu ay dhacaysay joogay bisha shawaal qoraxdu markay dhacaysay oo habeenka uu soo galayna joogay labadaas shawaal awalkeeda iyo ramadaan aakhirkiisa qofkii joogay qofkaasaa laga bixinayaa waqtigaas wixii ahaa wey markii ramadaanku uu bisha qoraxdu ay dhacaysay qofkii ka hor dhintay ama naagtii ninka uu furay markaas ka hor zakaatulfidri laga bixin maayo maxaa yeelay labada juz baa la rabaa inay qofku haleelo awalka iyo ramadaanka aakhirkiisa
iyo shawaalka awalkeeda labadaas waa inuu haleelaa qofkaasay baa laga bixinayaa. والنبي عليه الصلاة والسلام وعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز صحابي وكان له رسولك وحو فرض يلي ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أيوه. وعا رسولك وفرض يلي هذا المرة ديني رسولك فرض يلي إلهينا ما فرض يلي ووحي إلهي وفرض يلي ما يدعي الرسول فقد ضاع الله وكذوي ويسكن لازمه يعني وحو فرض يلي ساعة والتمرأة أما ساعة والشعير قف كسته حرة أما الضون مد لبأ أما مد دقيقة والمسلمين تكمل أيوك فرض يلي dadka laga bixinaya nafta laga bixinaya waa in muslim tahay naf aan muslim ahayn laga bixin maayo gaal laga bixin maayo dadkii qofku naftiisa asaga iska bixinaya qofkii xoolo leh oo ay zakada ku waajibtay naftiisa waa ka bixinaya cidii kale oo qofkaas nafaqa ku leh sida awlaadiisii oo kale ama azwaajtiisii adoomadiisina waa ka bixinaya waa laga rabaa waxaana la bixinaya qadarka la bixinayana waa saac waxa weeye waa 4 mudkiina waa rodol iyo thuluth markii la isku fiirfiiriyo oo la isku geegeeyo waa 6 koombo wax u dhigma koombada anaga wax ku miisano 6deed hadii la maarata la sii ziyaadiyo hadii la badiyo waa 6 koombo meelahaas oo kale weeye hadii kalena waa ka yar tahay laakiin qofkii inuu ziyaadiyaa fiican oo waxa intay wax ku soo laaban lahaayeen inuu badiyo oo ilaa 6 ka dhigo uman tadawaca khayran fa wa khayrun lahu ilaahi qofkii khayrka ku tadawaco ziyaadiya khayr buu yahay arintaas waa khayr buu noqonaysaa saasa la rabaa in loo bixiyo waqtiga ay waajibaysana waa quraacda ramadaan maalin markay dhacdo oo habeenka shawaal uu soo galo markaas zakadu ay waajibaysaa waajib in la bixiyo markaas ay noqonaysaa laakiin ramadaan markuu dhasho qofku waa bixin karaa oo waa sii hormarin karaa waa sii tacjiilin karaa ramadaan markuu dhashaba laakiin markaas waajibku uu yahay oo ay ku waajibaysaa waxaana la rabaa ilaa maalintaas quraacda ay ka dhacdo inaysan ka daba marin baa la rabaa ilaa quraacda ay ka dhacdo qofkii xoolihiisa ay joogaan oo maaragtay inuu bixiyo ay u suurtooday oo dadkii uu siin lahaa haya xoolihiina haya maalintaas inay ka gadaal martaa waa xaraam lama ogola way waa inuu maalintaas ku bixiyaa dhexdeeda ayaa la rabaa waxaa la bixinayaana waa xabba saliima xabad raashinka quutul qaalib waxaa la yidhaahdaa shayga quutul qaalibka ee dadku ay quudaystaan sanada inteeda badan 12 bilood intooda badan waxay dadku quudaystaan oo qaalibka u ah ayaa laga bixinaya oo xabad saliima la bixin maayo wax jaban la bixin maayo wax siis uu galay oo beerkii lagala baxay taas u gudimayso maaragta wax budaana u gudimayaan sida burka oo kale oo budada u gudimaayo xabad saliima la rabaa oo quutul qaalib ayaa la rabaa quudiyal badan haday qofka u qaalib yihiin midku doono bixin karaa laakiin mid hadduu u qaalib yahay midkaas baa la rabaa in laga bixiyo aatan annaga caradeena markii la fiiriyo quutul qaalib waxa bariiska ayaa quutul qaalib waxa la quudaysaa asaga u badan har iyo habeen asaga la kariyaa bariiskaas marka wuxuu noqonayaa shayga waajibka oo ugu soo horeeya waa asagaas la bixinaya waxa kale oo la bixin karaa shaygaas oo waajibay oo quutul qaalibka shayga ka nafciga badan oo markii quudaysiga liida ka nafciga badan oo jirka wax ka gelin ogna waa la bixin karaa asaga waa si fiican in la bixiyo hadda anaga bariiska quud noo asoomaa waxaa jira raashin badan oo bariiska ka nafci badan baa jira xagga lacagta la fiirin maayo waxa la fiirinayaa lacag ma ahan ka lacag badan ka kharash badan ma ahane waa ka nafciga badan xagga quudaysiga oo masagada iyo galeyda iyo digirta iyo kulli bariiska waa ka qiimo badan yihiin yani waa ka nafci badan yihiin ayaga waa la bixin karaa ayaga laakiin waxaan la ogolayn asaga wax ka hooseeya oo ka nafci yar in la bixiyo lama ogola shayga waajibka waa la bixinayaa wixii ka sareeya oo xagga nafciga uga fiicanna waa la bixinayaa
laakiin wax ka hooseeya lama ogola shayga waajibka u gudi maayo. dadka marka zakaatul fidriga laga bixinayo meesha ay joogaan oo bishu ugu dhalatay meeshaasaa la rabaa in zakadooda lagu bixiyo. qofka ama naftiisa ha ahaato ama dadka uu ka bixinayo ha ahaatee meesha ay bishu ugu dhalatay oo zakadu markay ku waajibaysay uu joogay halkaasaa la rabaa. haddii asagu meeshaan oo kale uu joogo dadkiisuna carro kale ay jiraan asagu ha iska bixiyo, laakiin dadka kale oo meel jira meesha ay joogaan buu uga bixinaya, halkaa uguma bixin karo, u gudi mayso. maxaa yeele waxaan la ogolayn naqlu zakaat waxa la yidhaahdo, zakada in la guuriyo oo dadka laga bixinayo ama xoolaha laga bixinayo meesha ay joogaan meel aan ahayn in loo guuriyo. shakhsiga aan maaliga aan maaragtay imaamka ahayn oo dawliga aan ahayn uma bannaana. qofka caadiga oo maaliga oo asaga xoolaha leh ama sadaqatul fidriga bixinaya inuu meel kale dadkii uu ka bixinayay meel aysan joogin oo ku bixiyo ma u gudayso, mana la ogola. waa in arrintaas laga digtoonaadaa. waxaa laga yaabaa dadkii oo baadiye ku maqan oo baadiye jooga halkaana odaygii uu joogo inuu meeshaan ku bixiyo. maya, waxaa mutay oo iska leh dadkaas meesha ay joogaan, dadka masaakiinta ah oo jooga oo halkaa jooga ayaa mutay, ayaga iska leh. meeshaa marka waxooda lagu dhiibi maayo, meeshay joogaan waa in lagu dhiibaa. qof walba saas waa inuu ogaadaa. arrintaas waa arrin waxa weeye aad iyo aad u adag. dadku way iska sahladaan, meesha ay joogaan baa qof walba iskaga hafeeya. masaakiintana ha loo dadaalo, xiiladana ha la iska daayo. xiilada waxaa ka mid ah dad badan baa waxay isku leexanayaan 10 qof, 15 qof, 20 qof oo kale ama dugsiley oo dhan, markaasay kiish soo gadanayaan, hal kiishoo raashin. kiishkaasaa la isku wareejinaya, hebelow adigu guddoon, hebelow adigu guddoon, hebelow guddoon, hebelow guddoon. kulli waa soo marta, way ka baxaysaa horta taas oo waa u gudaysaa. laakiin meesha maxaa ku jira? xirmaan baa ku jira, hoojin. dadkii masaakiinta ahaa oo la rabay in wax fiican oo qof walbaba hortiisa wixii ugu waajibay inta bixiyo kiishkii asaga ku waajibay, markaa masaakiinta uu siiyo kuwa maaragtay ku deeqo oo masaakiintu ay ku libaan oo wax tari lahaa baa laga hoojinaya. waa xeelad. xeeladaasna ma fiicna. xeeladaas ma fiicna. waxaa la yidhi waa nin oo fiqiga yaqaan oo maaragtay geed fiqiga yaqaan oo xeeladaysaah weeye ninka saas yeelaya. wax fiican marka maaha. waa in masaakiinta laga farxiyaa. qof walbaba wixii ku waajibay waa inuu siiyaa, inta soo gado waa inuu siiyaa. markaasay masaakiintu dhargaysaa, markaasay ducaynayaan, markaasay wax taraysaa sakadii. laakiin haddii sidaas xeeladaas la sameeyo ciriiri iyo faqri baa imaanaya, meeshii dhibaata imaanaysa. dadkii masaakiinta ah la rabay in la deeqo ayagana waa xili maayaan, meesha way ku qadayaan, adigiina faqri baa ku soo qaabilaya. waxaan isku waaninaynaa marka intaasaan isku waaninaynaa, hala dadaalo. baaraka allaahu fiikum. waxaan ku soo khatimayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: salluu khamsakum wasuumuu shahrakum waadduu zakaata amwaalikum waxujuu beyta rabbikum waadiicuu umaraa'akum tadkhuluu jannata rabbikum. wuxuu yidhi 5tiina salaadood tukada, bishiina ramadaanna sooma, maalkiina sakadiisana bixiya, rabbi beydkiisana xajiya u xajiya haddaad xoolo leedihiin. dadka umarada oo madaxdaana adeeca oo ka dambeeya. haddii wax macsiya aysan idin farin ee ilaahay diintiisa idinku hoggaamiyaan ku adeeca. haddaad 5taas samaysaan buu yidhi waxaa laydinku abaalmarinayaa waatan tadkhuluu, waxaad gelaysaan jannata rabbikum, rabbigiin jannadiisa baa gelaysaan. war intaasay jannadii ay jirtaa. wixii waajibka ah weeye waxaana laku wacaninayaa oo laleeyahay janno haddaad rabtaan inaad gashaan sameeya. ha lagu dadaalo, waajibka ha loo dadaalo, ha lagu dadaalo, oo daacada ha lagu dadaalo, oo khayrka ha lagu dadaalo, oo macruufka ha laysfaro, oo munkarka ha layska reebo, oo magaalada waxyaalaha xunxun oo ku dhex jira ha loo kaco, oo dadka culummada dadka ha waaniyeen, meel walba ha ku waaniyeen. ilaahayna ha loogu dhowaado, dembi dhaaf iyo khayr baa lagu helayaa. ilaahayna maaragtay ha laga baryo, ilaahay colka iyo abaarta iyo cudurradaba ilaahay naga koriyo. taasna ilaahay ha laga baryo.
intaasaan ku soo gaabinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.